soo dhawaada janaalka ardayda ku cusub subscribe saara iyo qof waliba ku cusub maanta waxaan rabaa horta adeegyada aynu wadnay waa hormuud somtel somnet waxaynu wadnay adeegyadii shirkadda hormuud somnet somtelna waynu soo kordhin doonaa haddii uu alleedmo insha allah. maanta waxaan rabaa in adeeg aan idiin faa'iideeyo kaasoo ah adeega ila wadaag sida loo furo ama sida la isaga helo. dadka su-aal bay isa weydiiyaan taasoo ah sideen isaga diiwaan gelinaa. taabaan rabay maanta aan ka caawiyo. waxaad leedahay xidig hal fargees ayaad leedahay. kadib markaa intaad tiraahdo furo adeega ila wadaag ayuu ku leeyahay ama iska xir, waa systemka fudud waayo. haddii uu horey kugu furnaay lambar 2 ayaa taaban doontaa, waad iska xiri doontaa. haddii uu horey uu kugu furnayna lambar 1 ayaa taaban doontaa, waad furi doontaa. ku darso qaybta ogolaansho ila wadaag. dad khaas ayaa rabta in adeega aad in ila wadaag ay ku soo wacaan, lambar 3 ayaa taaban doontaa. itus lambarka ayaad dhihi doontaa si aad isaga xaqiijiso. 99 waxa waaye waxyaabo kale oo ah dheeri sida hadduu ilaahay ku ron yahay waxyaabaha kale oo inta badan shirkada waxyaabaha kale oo khuseeya adeegan marka wuu iska kay saari maadaama aan cabaar hadlayay. waan ku laaban doonaa 99 dheh. 99 kolka aad tiraahdo 99 kolka aad tiraahdo wuxuu kuu soo bandhigi doonaa shayga uu kuu soo bandhigay ayaad fiirinaysaa. 99 wuxuu ku leeyahay adaa ogolaansho ila wadaag. 5 waxa waaye ka saar qaybta ogolaansho ila wadaag. waa haddii aad rabto in qof aad saaratay qof gooni haddii aad saaratay ila wadaag waad ka qaadi kartaa insha allah, oo waxaad taaban doontaa lambar 5. intaas waa iyo adeeg ila wadaag. waxaan soo wadaa adeeg shirkadda isgaarsiinta hormuud ay soo kordhisay oo ah sidii aad ku baran luqadda ingiriishka adigoo qiimo yar oo sentiyaal ah bisha dhan ku baran doona. hadday u baahanta koorsa caadi ahna lambarada cashirkan cashir ku xigo ayaynu kugu soo gudbin doonaa. la socod wanaagsan. haddii aad xarunta aad imaanaysana furo 5 ayaad iska diiwaan gelinaysaa. kan wax ka yar 30 senti waayo. bisha dhan ayaad af ingiriis aad ku qaadan doontaa. cashirkan haddii uu kusoo gaaro kan ka koreeya fiiri insha allah kaas waayo. asalaamu calaykum.